بسم الله الرحمن الرحيم دمانتي وسلامتيين meel kasta aad joogtaan marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan ilaahay u baryo meeshan aan ka muujiyo maxamed axmed cagayare nabadoon maxamed axmed oo ku magac dheer nabadoon cagayare ahna aabaha dhalay Cabdifatax Jabba oo dulmidiid ka tirsan dhalinyarada dulmiga diiday ee u ololeysanaa aabihii ah oo lagu xiray magaalada Jigjiga kadibna magaalada Dhagaxbuur loo sii qaaday ayaa isbitaalka Dhagaxbuur hadda ku jira xanuun la ildaran biya laga shubay sida la soo sheegayo waa loo diiday inay ehelku arkaan dhakhtarku yaala waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo gacanta ka xaq daran uu xiran yahayna inuu ka soo daayo insha Allah ta'ala maraan fogeyn uu ka soo bixi doonaa gacanta xaq darada asoo gurigiisa jooga xidhay asoo wax dambiye gelin kaliya wiilkaaga ayaa wax iga sheegay kaliya lagu xidhay waxa sidoo kale aan ka xumahay ana dadka la socodsiinaya waxa guriyihii laga xidhay nabadoon Cabdi Dable Cabdilla Fiixiye oo ilmaadeernahay 70 jirna ah muddo 2 bilood ku dhowna u xiran Cabdi Maxamed Umar keliyana ugu xiran inaan aniga ilmaadeernahay ama qaraabo aan nahay reerkii oo markii hore dukaankii iyo baqaarkii ay lahaayeen ganacsiga laga xiray ayaa habeen hore gurigii ay deganaayeen laga saaray oo banaanka alaabta loogu daadiyay magaalada Qabri Dahar waxa kale oo maartay guriyihii laga saaray ganacsiyadii dad kale oo qaraabanahay oo magaalada Qabri Dahar deganaa waa beegsi xun waa beegsi uqdad iyo argoosi laga yaabo inuu keeno inkastoo ka taxadarayo laakiin waxaad moodaa xaaladda Cabdi Maxamed Umar iyo ilmaadeeradii inay tahay waxba naga ma gelin anagu waan ka tageynay oo ay ku sii rafanayaan beelahana ay isku dirayaan argoosi xun inuu dhacay rabaan waxaan leeyahay dadkaas oo dhan waxba maysa geysanin hal la soo daayo xaq darra lagu haystaa dhamaantoodba inta xiran loo xiray dadka maqan sidii ilaahay uu yiri la taziru waziratu wizra ukhra nafna naf kala dambigeeda ma qaado waxa kale oo jeclaan lahaa inay idin la socodsiiyo war mar dhaweedii soo gaaray oo ah taliyaha ciidamada federaalka Ethiopia General Samora iyo taliyaha sirdoonka Ethiopia General Gitajo Asafa inay iscasileen warka asaga si hoos ayuu igu soo gaaray
weli lama xaqiijin oo public lagama soo dhigin waxaan rajaynaynaa laakiin mar dhow inuu banaanka usoo bixi doono laakiin weli war rasmi xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia kama soo bixin iyo dowladda waa war si hoose uu lagu maqlay saas darteed baa idin la socodsiinaya war 100% la hubo ma aha laakiin waxaa la hubaa labada generaal kala haystay Metag iyo Insa oo labaduba Tigray ahaayeen inay iscasileen waxaana xaqiijisay saxaafadda Ethiopia ayaa xaqiijisay labada kale afarta generaal waa afarta nin ee ugu sareysay Ethiopia ahaayeen xagga security-ga military-ga iyo sirdoonkaba afartan generaal hadda laba leeyahay way iscasileen labada kalena la xaqiijiyay inay iscasileen oo warqadooda ay public soo dhigeen waxaa muuqata jihada wadanka uu hadda u socdo inay dareemeen inaysan la qabsan karin amaba eeda badan loo haysto iyo musuqmaasuq iyo tacaddi sidaa darteed loo ballan qaaday inay xasanad helayaan amaba ugu yaraan aan dambi loo raacan doonin hadday xilka si nabad uga tagaan ayagoo taa ka faa'iideysanayaad moodaa inay go'aamada ay qaateen insha allahu tacaala wixii kasoo kordhan waa idinla socodsiin doonaa laakiin waxaa maragma doonto ah oo la isku raacsan yahay inuu waddanka Ethiopia isbedelay isbedelkaas inta uu la ekaan doono waxaynu qiimeyn doonaa marka aynu aragno ficilada ra-iisul wasaaraha cusub waxaa kaloo muuqata waddo uu kusii joogi karo ninkii deegaanka ku feeta bilaasay 10 sano la soo dhaafay iyo qaraabadiisii xukunka ku haystay way muuqataa waqtigoodii inuu dhamaaday weliba waxaan maanta idiin sheegayaa maalmo ama bilo ayaa u hadhay inta uu meesha ka tegayo waqtigii uu dhamaaday wax walbana waqti buu leeyahay xisaabaadka factionku waxaa jira meel top ay gaadho kadibna ay hoos soo daadegto marka topkii wuu gaaray hadda waa hoos socosho uun waqtiga un baa la tirinayaa iyo maalinta uu tegi doono laakiin waxaa muuqata inuu meesha ka tegayo haddaba waxaan jeclaan lahaa dadka deegaanka marka koowaad inaan oga digo is-aarsiga iyo beela inay isu qabsadaan sidaad la socoteen oo xalay soo qoray shalaytoona waxaa ka dhacay magaalada Mooyaale kacdoonka waxaa lagu beegsaday dhalinyaradii uu dib u curashada meesha ku geeyay degmooyinka oo si beel ahaan amaba maamulka inay ka tirsan yihiin loo beegsaday qaarkood way dhinteen qaar dhaawac baa soo gaaray qaarna mataqaanaa way dhudhuumanayeen arrinta ayada Mooyaale waa uu tusaale yar oo laynaga tusay waxaas dhici doona haddii cabdi uu meesha ka tago maamulkiisa waxaa iman doonta ama khatar ay u tahay beegsi iyo aarsi badan inuu imaan doono arrinta ayada keliya waxaa lagaga hortegi karaa marka waxgaradka hadda dhuumanaya ama cabsanaya ama wax kale xeerinaya ay banaanka yimaadaan oo ay dadka jiheeyaan waxyaalahii Soomaaliya markii xukuumadii kacaanku ay dhacday dagaalada sokeeye ay uga bilowdeen ee dadku isu wada laayeen waxaa kamid ahaa ayadoo dadka loo fiiriyo hab qabiil ee loo fiirniyaa xukunka ama kacaankii yaa ka tirsanaa waxyaalahan xasan waxaa kamid ah saraakiishii dowladii ama wasiiradii dowladii siyaad barre ka tirsanaa inuu ninba qabiilkiisa uu noqday markuu xukunkii meesha ka baxay oo ciidanka qabiilkiisa ama kooxda qabiilkiisa uu ku biiray asagoo dhahaya ama oranaya kuwa kala farta ku fiiqaya oo la kuwaas ayna dulmiyay hadda taas baynu halis u nahay waa inaynu ka tusaale qaadanaa wixii Soomaalida kar hore u soo maray ninka daalimka ee cabdi la shaqaysanayay waa inaad beel ahaan ku soo dhaweynin odayga cabdi ka qabiilka u ahaa koofiyad baclaha waa inuuna adiga ku metelin oo aad qabiil ku soo dhaweysanin waa in dhinac ay dadku ka wada maraan intii aan dambiyada gacanta la gelin dambi gacanta la gelin waa in mustaqbalka ummadda wax laga weydiiyo oo tashadaan isu imaadaan waa inaan la kala aarsan aarsashadu waxay keentaa burbur iyo fawdada iyo inay dadka shacabka sharciga gacantooda ay ku qaataan waxyaalaha ugu badan ee mujtamacyadu ama dawladuhu ama sistemyadu ay ku burburaan loogana faa'iideysto waxay tahay marka ay bilaabaan is-ugaarsi dhexdooda iyo isbeegsi marka haddii dadkanu ay rabaan mustaqbal fiican ama nidaam fiican inay ku noolaadaan cadaalad sinaan iyo xorriyad waxaa kowkaa inay isu tanaasulaan inaan la isbeegsanin ninkii dambi galana waqtigiisa cadaaladda la keeno
laakiin dad intay baangad qaataan iyo qoryo inaysan ree hebel ama wiilal dib u curasho u joogay meesha oo shaqaale uu cabdi meesha kusoo qoray inaysan beegsanin oo ina laynin maxaa yeelay taasu waxay keenaysaa systemkii oo burbura waxyaalaha cajiibka waxaa weeye cabdi ilay ama cabdi maxamed cumar wuxuu dhisay buur oo qashin ah ama dad aan u qalmin inay jagooyinka ay qabtaan ama dad ay maamulaan hadday ahaan lahaayeen maamul odayaal iyo madax asaga ma ahaana wax kale oo ka nool ama ka jira meesha oo maamula ma jiro haddii asaga maanta laga bixiyana ama laga kor qaadana systemku will collapse wuu isku dhacaya wuu isku guda dhacaya waxa weeye 10kii wiilu meel geeyaba dadka meesha degan oo ciil badan u qaba ayaa weeraraya tusaale ahaan xalatole waxaa la xidhay sheekh axmed rabiic macallin maxamed oo magaalada wardheer 40 sano tafsiir ka akhrinayay ninka xiray axmed la yiraaho iyo nin kale gobollo kale ayay ka soo jeedaan reer wardheerkuna way og yihiin sheekha jirdilka iyo xariga cidda u geysatay ilaahay baan uga mahad celinayaa kadib markii aanu soo qoray inuu cabdi isku dhaxyaaco nimankii waxuu yiri meel walba mucaarad baad iga samaynaysaan maxaad sheekhaana ku maagteen caawa oo uu ka sii daayay inkastoo jug ay soo gaadho sheekha oo wax ilaahay looga mahadiyo laakiin nimanka meesha jooga tusaale waxaan ka soo qaatay nimanka hadda sheekha xiray ee wardheer jooga haddii systemkan cabdi ama cabdi uu hoos u dhaco nidaamkiisu shaki kuma jiro reer wardheer shacabka ah haddii cuqaasha iyo waxgaradku aysan istaagin inay ka aarsanayaan inay wiilasha dilayaan maxaa yeelay deegaankooda uma dhalanin meel kale laga keenay dambiye badan bay ka tirsanayaan kuwa mooyaala joogana waa saas oo kale kuwa baarey jooga kuwa goday jooga qabiil walba wiilal ayuu geeyay dadkii amarkiisa fulinaya oo dulminayay wiilashaasu cid walba ku jeedsanaysaa ama ay ka aarsanaysaa waxa kaliya hadda kaga baqayaan waa systemka kore iyo cabdiilayga dhisan laakiin maalinka uu meesha ka baxo 10 wiil wardheerna ma guumaysan karto mooyaalana ma guumaysan karto baareyna ma guumaysan karto marka waxa loo baahan yahay ahlul xal wal aqdiga inay istaagaan in beegsiga noocaas oo kale ah oo ficil celin samayn doona markaad wiilasha la dilo mooyaala jooga ama magaalo kale jooga waxaa imaanaysa reerka magaaladii lagu dilay degan wiilashooda dhulkan jooga in laga aarsado waa dhaqanka Soomaalida kuwaasna waxaa imaanaysa kuwa kale oo degmo kale jooga in laga aarsado marka isu aarsi ama nidaam waxaa imaanaya fawda oo dadku ay iswada laayaan isxasuuqaan waa mid halisa muddo badan walwal igu haysay dad badan ku haysay waa arrin u baahan in laga tashado waqtigii la dhuuman lahaa ama la isqarin lahaa lama joogo haddii shalay saa la samayn lahaa in badan baynu soo niri shalaydii aad waagii hore ka shalaytoon jirta hadda maantay taagan tahay maanta ayay dadku u baahan yihiin jihayn rasmiya fursadda hortaala inay ka faa'iidaystaan inay soomaalinimo ku midoobaan let me be very clear with you waxa weeye haddii soomaalinimo aan wax lagu raadin oo beelbeel wax lagu raadiyo waa la wada khasaari haddii loo kala dhuunto nimanka hadda wadanka qabsaday ee Addis Ababa jooga oo reer walba uu yiraaho annaga u tagayna oo annaga ayaa maaragtay la heshiinayna ama annaga ayayna wataan waa la khasaari waxa kaliya oo wax lagu raadin karo anoo og Soomaalidu inay beela tahay anoo og in nidaamka qabaliga uu inagu adag yahay odayaal iyo ganacsato iyo rag hore oo ku caanamaalayna oo dhaqaale haystana ay ka dhex faa'iideystaan ayaga oo kursi raadinaya ama xoolo raadinaya annagoo reehbel maxaa noo ogol yahay oranayaan ama inagoo reehbel meesha ayna gee haddana waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo Soomaalida xorta waaba la gartaa haday qabiil isku riixdo laakiin Soomaalidan aan weligeed xaqeed iyo xuquuqdeeda helin muddada dheer guumaysiga ku jirtay waxay u baahan tahay oo laga maarmaan u ah inay midowdo si ay xaqooda ku helaan sida qoomiyadaha kale inay u midoobaan waxa ugu hooseeya marka ugu horeysa inay helaan xuquuqda aasaasiga inay helaan xorriyad ay ku ganacsadaan ay siyaasiyiintooda ku doortaan ay helaan wax u dhigma qaybta ay ku leeyihiin dowladda federaalka Ethiopia ay helaan shidaalka iyo kheyraadka dhulkooda ku jira qaybta ay ku leeyihiin ama ay ka qaadan karaan waxaa jira arrinaan la iska qarin karin la iska indhasaabi karin beel ama urur waxaa jiray soo dagaalamay oo muddo dheer dagaal kula jiray TPLF
ururkaas oo NLF la yiraahdo beel baa u badnayd dad badan way ku jireen way ku baabeen waxa weeye xal ayada oo laga helin oo ururkaas una qayb ka noqon halka xal lama gaarayo waxa weeye waa inaynu qiraa kuwa dhiiga horay ee dagaalamay ama saxa ku dagaalamaan ama khalad ku dagaalamaan say doona kula muuqato laakiin xalka waa inay qayb ka noqdaan waa sida aan qabo haddii la rabo Soomaali isku duuban oo midaysan inay xaqeeda iyo xuquuqdooda raadsadaan waa inay xalka qayb ka noqdaan waa in dawladda federaalka Itoobiya lagu cadaadiyo sida ugu dhaqsaha badan wada hadal rasmi ah oo ahayn riwaayadii Nairobi Cabdiile oo kala ah inay la gasho in la soo afjaro qoriga iyo dagaalka fursadda dambe ee imaan doona dadkaasuna si nabadgelyo looga faa'iideysto sida shucuubta kale ay ku najaxday arinta ayada waxaan u arkaa inay muhiimadda koowaad ee beesha magaceeda ay u wato ururkaasu ee ayaduna silci ugu badan iyo dhibka ugu badan uu ka soo gaaro dagaalka ururkaas inay u istaagaan ama ha taageersanaadaan ama ay taageersanaanin sida arinta ayada xal waara oo nabadgelyo looga gaari lahaa waa muhiim waa qayb ka tahay xalka isu keenida waxa kale oo muhiim ah dadka cabsanaya amaba danahooda ku foofay ee iska shaqaysanay ee wax garadka inay waqti siiyaan dadkooda inay uga faa'iideeyaan bal maanta inay mideen karaan ummadooda qabiil walba intooda wax garadka haday hor imaato ama ay soo hor fareysato ama hogaanka ay u qabato xal waara ayaa la gaari karaa danta guud ayaa lagu midoobi karaa asa Soomaali ahaan laakiin qabiil walba hadii afminshaarka iyo wasakha iyo qabyaaladeystaha ay soo hormariso guus ma imaanayso ninkii wax garadka ahaa ee caaqilka ahaana uu aayar reerkiisa caruurtiisa iska karsado hadhow talna asagoo banaanka ka fadhiyo oo halka wax ka dhaliilo uu yiraa maxaa loo sameyn waayay maxaa sida loo qaban waayay hadii aad adu qabanin cid kale inaad dhaliso waa khalad bari inaad maqaayada ka sheekaysid waa khalad waxaan aanu halkan ka iraaho inaad maalin badhageysatid oo akhrisatid oo ku raaxaysatid ficilna aad sameeynin waa khalad hawaye society-ga ama maamulku ama dawladdu shakhsi uu ka bilowdaa adiga shakhsiga aba dawladdiya adiga bay uu sawirka ka muujinaysaa haddaad qof fiican tahay haddaad dadka danta guud aad u istaagaysid waqti aad gelinaysid lacag aad gelinaysid wax wanaagsan baa ka soo bixi haddii aad waxba gelin oo sheekadaadu fadhi ku dirnu ay dhaafi weydo oo day is abaabulin oo ka qayb qaadanin hadhow toole inaad qof kala dhaliishid ama qolo kale aad dhaliishid waa khalad xaaladuna isbedeli mayso ilaa aad adu isbedeshid waxa dhan ee dawladda iyo nidaamka lagu sheegay saameyn bay adiga kugu leedahay waxa laga yaabaa adiga qurbaha jooga ee ama ay dhaqaata ama shaqaysta inaad isla saameyn kuguma laha waxa dhulkii ka dhacay deegaankii saameyn bay kugu leedahay saameyn aad u ballaaran bay kugu leedahay waxay kugu leedahay mid dhaqaale oo ehelkaagi shaqaysan lahaa haduu wadankoodu nabad yahay wax ka qabsan lahaa yaa adigu aad biisha oo lacag u dirtaa ayakoo hadba meel u qaxaya Boosaaso Kismaayo Nairobi Djibouti marba meel laga la soo hadlayo labo saameyn kale kugu haysaayo markaad war xun ama in hebel baa la xidhay aad maqashid warwar iyo stress baa kugu dhaca aad habeenkii ka seexani waad warwaraysaa stress baa ku haya shaqadaadii si fiican uma qabsan kartid marka adiga dibadda jooga in meesha xal rasmi laga gaaro oo ay nabad noqoto dadku xor u noqdaan inay ganacsadaan shaqaystaan wax bartaan adiga dibadda jooga saameyn badan bay kugu leedahay inaad ogtahay inaad ogeynba haddii meesha aad ka keentid meel aan dadka lagu dhibaataynin dadku ay shaqaysan karaan waa ehelkaagu inay shaqaystaan bay u badan tahay biilka aad u diraysid inaad xoolahaas wax kale ku tabcatid ama aad maalgashi kale ku samaysatid haddii aad adu beritolo waddankaaga dib ugu noqotid si nabadgelyo inaad uga ganacsan kartid cilmigaaga iyo aqoontaada iyo dhaqaalahaaga aad ku korin kartid marka mar walbaba saameyn bay kugu leedahay ha u malayn inayna saameyn kugu lahayn waana muhiim dadkeenu inay saa u gartaan inay saameyn ku leedahay ama ha jeclaadaan ama aysan jeclaanin arinta kale aan kusoo gabagabaynayo jecelahay waxay tahay waxaan jeclaan lahaa sida ugu dhaqsaha badan waana la wadaa in Soomaalida deegaanka inta damiirka iyo dadnimada leh intii ka damqatay dhibaatadii jirtay iyo culayskii jiray iyo inta aan ka damqanin iska dhuumanaysay ama iska aamusneed ama cabsanaysay ama xidaarinaysa inay sida ugu dhaqsaha badan ay isu tagaan sir ay qabsadaan ay qorshe iyo istaraatiiji ay Itoobiyada cusub kula jaan qaadayaan ay sameystaan
ayagoon qabiil ahayn ayaga oo aan ahayn mataqaanaa urur gooniya gobol gooniya cid gooniya aan ahayn waa muhiim tallaabada labaad ee muhiimka waxay tahay in wadankii degmo walba iyo gobol walba dadka ahlu xalliga wal caqdiga ah ay ka hortagaan isu aarshi ama isbeegsasho ama dagaal sokeeye number 3 dadka xiran ee la soo deyn doono in ayakana la xakameeyo dib u dejin loo sameeyo kuwa xiran cadaaladda la horkeeno waqtiga munaasabka ku ah hay Soomaalidu degdeg bay wax ku dhigtay wuxuu rabaa qofku markiiba wixii intii la qabtay insa la sameeyo hantida waxa la kala dhacay dadka la xiray guddi bay u baahan tahay si degan maskax degan in lagu wajaho ma aha si caadifaysan oo orod ah oo maartay aan qorshaysnayn si qorshaysan oo aqliyeysan oo dadkii cadaalad darrada lagu sameeyay cadaaladda loogu falayo kuwii hantidooda la dhacay hantidoodii loo soo celinayo kuwii la xiray cadaaladda loo keenayo arrimaha ayaga oo dhan waa muhiim dadku inay ka tashadaan waqtigii baa la gaaray waxaad sugtaan ma laha xaaladdu waxay maraysaa meel iida inaad wada khasaartaan oo godka lagu wada dhaco ama in la wada guuleysto laakiin qolo gooni u guuleysan doonta qolna ay khasaari doonto way ma dhacayso waxay Soomaalinimo idinkoo Soomaali ah oo isku duuban haddaad xaqin iyo xuquuqdii federaalka aad raadsataan dhaxdiinana aad cadaalad isu samaysaan waad guuleysanaysaan haddii idinka oo Soomaaliya aad qabiil iyo dhaqankii leedinku yaqaan iyo anagoo reer hebel tuule heblaan leenahay anagoo reer hebel baan dulmiyay anagoo reer hebel haddaad bilowdaan waa la wada khasaari qaraabada cabdi ee ama xididka ay yihiin ama ilmaadeerka ay yihiin ee wadanka ku feeta bilaabaysa tacadiga badan ka geysatay intooda wadanka ku hadha waxaan qabaa inaan ayadoon maxkamad cadaalad la horkeenin inaan waxba loo geysan si qiira Japan aan loo weeraray haween ninkii dambi galay dambigiisa ha lagu qaado ninkii aan dambi galin dadkiisu ka mid yahay kii xoolo dhaca xoolihiisa laga soo celiyo waxaan ugu baaqayaa Soomaalida waxaan ugu baaqayaa oo ku celcelinayaa inaan aarsi la bilaabin hatta haday qaraabada cabdi tahay ilmaadeeradii haday yihiin sababtu waxa weeye waa dinamo wuu iska wada daba dhici mar hadduu bilowdo aarsigu lama xakameyn karo lama qaban karo wuu balaaran qaraabada cabdi uu ka bilaaban kuwa karu ka bilaaban kuwa sii kore wuu faafi nabad saa lagu heli karo iyo cadaalad iyo horumar waxaa lagu heli karaa cadaaladda ayaga oo la horkeeno si nidaamsan oo qorshaysan qofkii dambi galay ee wadanka ka cararay ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo jeclaan lahaa insha Allah taala beritola ayaa fursad siin doonaa dad kale oo badan ay la qayb qaataan waxaan ku soo gabagabeynayaa cabdi adsaba ayuu keenay wixii oday wasiiro maamul ahaa inay la hadlaan ama shir uu ku sheegay wada hadalka Oromada iyo Soomaalida waxa kale oo dhacaya magaalada Addis ka dhacaya shir dhalinyarada kilada loo qabanayo oo sanadkii oo mar la qabto caadi ahaan ma imaan jirin wasiiro iyo odayaal iyo maamuladii degmooyinku laakiin waxa la ii sheegay inuu rabo shir inuu yiraaho Oromada iyo Soomaalida ha isu yimaadaan ha wada hadlaan in arinta laga yeeliyay in kala ma hubo laakiin waxa uu wado oo dhan waa la ii shafeeca qaado dadkan oo dhan baa ay taageersan waa inaad muujisaan kuwiina Addis jooga Jigjiga jooga dibadda inaydan taageersaneen cabdi wuxuu ku doodaa Soomaali oo dhan anay taageersan tahay macal Soomaali hadda ganaato Somaliland Puntland Soomaaliya ilaa kilku anay taageersan yihiin xaqiiqada wax taageersan uu yaryahay